Binance wuxuu ogol yahay ID-ga Soomaaliga ogol yahay wow in lagu furto wow baasaboorka Soomaaliga ogol yahay lagu furto wow waana exchange-ga caalamka ugu weyn uguna fiican uguna raqiisan fi ahaan coinanka adduunka dhan ay ku jiraan wow ka qaabku u sameynaya hadduu albaabkan furo albaabkii xaraantu furay hadduu albaabkan furo albaabkii xalaashu furay kan uga digaynaa kana ka shaqaysan leen dan adiga way dooqaaga adigii dooqaaga marka wow maadaama expert tihiin adduunyada sida hadda Kenya oo kale dadkooda expertka sidiin oo kale ah waxay isku dayaan inay dadka internationalka shirkadahan leh inay inta hor fadhiistaan ay yiraahdaan waxaan annaga rabnaa inaad dalkeena u soo deysaan systemkan idinka maxaa idinku kalifi waaye inaad inta expertka ugu weyn inta la fadhiisataan aad tiraahdaan we are from Somalia waxaan u baahanahay systemkan dhalinyaradeena inaad u fasaxdaan ama aad kala hadashaan ma isku daydeen dhalinyarada ka xishoonaysa maanta isku haysata haddii ay YouTube furato inay dib u dhac noloshooda ku imaaday maxaad leedahay waa su'aal fiican aniga marka YouTube channel aan furto 2021kii commentiga dhalintiisa kale waxa dhaaniyo jaacad baa ka soo baxday ma YouTube dib u laabatay horta aniga lacagta YouTube ka sameeyay bishii waa 800 euro ama 700 euro hadda waalidiinta aad ay dhalinyarada ugu dhibaateeyaan waxa weeye hal qodob qofka waxa la leeyahay jaamacadii ma dhamaysaha shaqayso khayrka oo shaqaysanaya khayrka uu shaqaysanaya intaas wax ku soo barayay shaqayso de waalidkii direction-kii ma hayo balse kaliya waxa uu hayay cunuga inuu wax baro kaliya skills-kii iyo meeshuu wax ka raadsanayay in indhaha loo furo de ma jirto qofka marka hadduu arko walaalkii ka weyn ama walaashii ka weyn oo de jaamacad inta ka soo baxday gurigii busaare la'aan la fadhisa hadduu arko de jaamacadii buu nacaya maxaa marka qofka kuwaani lahayd oo aad leed meesha haddaad imaado busaaradana waa ka baxaysaa adiga waalidkana isma qabanaysaan mustaqbalkaagana waad dhisi kartaa hadduu dhammaado baasaboorka buluuga ahaa East Africa qofka Soomaali xaq u leeyahay inuu qaato so therefore adiga Kenyaatiga isku mid ahtiin magaalada kasoo degto wadada visa laga mar rabo banki laga mar rabo hadda waxaan bilawnay jaamacadaha wadnaa probably next 2 weeks oo maqli doontaan ardayda jaamacadaha dhigteen free ku dhigtaan lacagta Kenyaatiga ay bixiyaan ay bixin lacagaha kale haddaad muuqaalkan iska gudbisid waa adigu mustaqbalkaaga is gudbiyay waxaad haysataa qiimo dhimis 10% ah $10,000 kaliya baxso kadibna si bille ah lacagtaada u yaryaree 2 sano gudahoodna ka mid noqo qof maantay hanti ku leh waayo noqo ruux hanti leh ilmihiisana hanti uga taga dunida maantay waxaa adkaatay sida dhaqaale loo sameeyo iyo weliba sida hal mar lacag loo wada bixiyo adigoon dareemeyn in yar iska hormari adigoon dareemeynina gurigaaga furihiisa la wareeg wax ka sharaf badan mal dad damaanad ku haya welibana waxaagi si sharaf leh ku siinaya haddii ay cilad kugu timaadana ku ogol inay lacagtaada kuu soo celiyaan jaaniskan haddaadan ka faa'iideysan bari waxaad noqon doontaa qof jaaniski kaaga faa'iideystay iyo adiga inaad kala saramartaan waxaa hore loo yiri ninka guri wanaagsan weligaa ma gaartid ninka faras wanaagsanna sanad ma gaartid ninka haween wanaagsan weligaaba ma gaartid haddaba maxaa sugaysaa guri wanaaga ma qayb ka noqotid let's go whatsapp-kana wac saakay waxaan idin wadaa vlogger waxa uu ka bilaabanayaa halka waxaan rabaa inaan ka qayb galo shir ganacsiyeed oo ka dhacaya hoolka shirarka ee Nairobi KICC la yiraahdo dabaqa ayaan u socdaa before intaan shirka aadin baan waxaan rabaa inaan yara quraacdo kadibna aan shirka ka qayb galo waxaan doonayaa marka vlogga inuu halkaan nooga bilowdo oo aad ila aragtaan ilaa iyo shirka meeshan ka tagayo waxa uu ku saabsan yahay shirka dhammaan inaan warbixinta gadaal idinka siiyo balse iminka maqaayad yar oo waxaan imaaday aad cool u ah oo masha Allah ah maqaayadan waxyaabaha ku jeclaado waxa kamid ah siday cool u tahay iyo qaabka loo sameeyay naqshadeeda markaad aragtid halka dhirta iyo naturalkan aad u jeclahay jaranjaro yar ibiro korey leedahay inaba caadi maaha maqaayadaha kale Soomaalidu waxay uga dugan tahay maqaayadan ma aha maqaayad buuq leh waxayna ku taala maqaayadan ma ay ku dhagan tahayba Khaybar Blue Storm ayna ka soo horjeeda Al-Hidayah ku dhagan tahay isbitaalka Khaybar hadad garanayso ku dhaganta meel jawi degan oo ana inaba caadi ahayn tadeedana inaba caadi ma aha fast food kale ilaaba let's go ila daawada rajada noloshiyo nafta raaxada dunida halka yeeqdo rabbigu sharfa raaliyo dumarun jecla midda dheerahay marwada reerkiyo raxmaan ugu dambeyntiina waxaan soo gaaray goobta shirka uu ka socdo halkaasi aynu ku wada kulannay aniga iyo Geela Bashiir waxaana fursad u helay inaan waraysto ustaad Bashiir waxaa sharaf ii ah inaad maanta nala joogto Kenya in badanna inaad dhalinyarada ka wacyi geliso siday entrepreneurship u noqon lahaayeen ama ay u fahmi lahaayeen qaabka e-commerce-ga ay uga shaqaysan lahaayeen
platformka social mediaha shirkan Nairobi aad ugu imaadeen ilaa iyo Belgium oo dabcan ah Global Somali Entrepreneurship Forum baan waxaan rabaa hal iyo labo inaad wax naga tiraahdo aad baa maasan tahay si naxariis leh insha Allah waxaad su'aalayn way weydiin karaan okay shirkan forumka ka soo qayb gasheen muhiimadiisu maxay tahay wallahi shirkan wuxuu ahaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel ba joogaan gaar ahaan reer Nairobi in lagu baraarujiyo businesska guud ahaan marka shir balaaran buu ahaa siyaasiyiin baxtaan ka soo qayb galay annaga sectorka waxaan ka soo galayay businesska marka waxaan la wadaagnay fursadaha businesska gaar ahaan online businesska siyaalaha loo bilaabi karo waliba si aan dhaqaale badan dadka maadaama haysan in ideooyinkooda iyo fikirkooda talentigooda social media platformada keenaan dadna waxa weeye skill bartaan kadibna ka shaqeystaan meeshaas dhalinyarada la wadaagna fursadaha iyo stepska dabcan waxaa jiro caqabado aad u badan oo ay kamid yihiin dhalinyarada Soomaaliya jooga ee shaqo la'aanta iyo kuwa waliba xataa Nairobi halkan jooga caqabadaha ugu badan ee haysta waxa weeye inaysan access u lahayn bangiyada oo yacni transaction money-ga sameynaya marka dadkaas oo kale qaabkee wax looga caawin karaa ama qaabkee uga faa'iideysan karaan ayagoo jaaniskiina diyaar u haya balse aysan awood u lahayn transaction bangiga wallahi waa su'aal aad u fiican hadda intaan ku jiray session-kayga dhalin badan bay weydiisay businesska online dad ku jira gaar ahaan social media payment-ga aad ugu adag yahay oo payment method Soomaaliya ama East Africa wasamaho lama aqoonsan halka qaab lagu xalin karo waxa weeye bangiyada asxaabtooda qurbaha ee ku xirtaan adreesada iyo bangiyadooda qaabka on baad soo far lagu xalin karaa laakiin dadkii jooga hadda Facebook waa loo furay in awti si wanaagsan taas waa la xalin laakiin Soomaaliya wali waa lagu dhigan yahay eligible country baa looga dhigan yahay marka lama xalin karo ilaa waxa weeye YouTube-ka oo location ahaan Soomaaliya waa aqoonsado laakiin dad badan hadda waxa Soomaaliya YouTuber lacag badan sameeyo way isxaliyeen qaab isku xaliyeen waa inaad adreesadaas bangiyada qurbaha ku xirtid lacagtana ka aad ugu soo lacag ka qaadatid absolutely aad iyo aad waa mahadsan tahay dhalinyarta halka naga daawanaysa jaaniska maanta aanan ku helin inay kula kulanto halka su'aal ay rabaan ay ku weydiin lahaayeen oo ah 10 sano ka hor waxyaabihii ku dhaafay oo haddii dib lagugu soo celin lahaa aad maanta ka faa'iideysan lahayd maxay tahay wallahi waa su'aal aad fiican weeye aniga 10 sano ka hor waxyaalaan sameyn jirin laakiin hadda aan ku liibaan waxa kan waa skills iyo xirfadaha jaamacad baa dhigan jiray economic Malaysia xilliga hadda ogaan lahaa skills-ka taala iyo bawfka leeyihiin skills-ka waan baran lahaa iyo gaar ahaan social media marka labadaas kala talin xirfadaha la barto waxa weeye skills-kana waxa social media hala soo galo si positive business halka waa ka sameyn kartaa inta aan insha Allah dhalinyarada ka xishoonaysa maanta isku haysata haddii ay YouTube furato inay dib u dhac noloshooda ku imaaday maxad leedahay waa su'aal fiican aniga marka YouTube channel aan furto 2021kii commentiga dhalintiisa kale waxa dhaaniyo jaacad baa ka soo baxday YouTube dib u laabatay marka Soomaali ahaan waxaan ay qaldan YouTube-ka waxa ku badan waxyaalo kale ma la yacni laakiin YouTube-ka waa platform fiican business ahmada u soo gashid ka faa'iideysan karta dhaqaalaha bisa badan ku dubisi karta YouTube maanta waa jaamacad xirfad kasta oo keenaysa marka social media waa qaabka u isticmaasho waa mid laba afle laakiin fiican dadka isticmaashin si ku fuqo noqonaysa soo dhawow ustaad aad baad maasantay saaxiib si naxariis maadaama madashan ay tahay madal ganacsi doorka kaaga aadanaa ee shirkaad uga soo qayb gashay hal iyo laba haddaad dhalinyarada baraarujiso ha soo dhawow runtii aad baad mahadsan tahay thank you madashan Global Somali Entrepreneurship Forum inayna kulmisay kulley ujeedada ugu muhiimsan ee aan uga soo qayb galay doorkan speaker baan kaga qornaa ma sha Allah inaan dhalinyarada la wadaago runtii mowduuc muhiim ah oo ku saabsan buying and shipping from abroad how small business handle themselves si wanaagsan qaabka caalamka wax looga soo iibsado iyaga oo qofka ganacsadaha hadda ganacsiga ku dhex jira isagoo cidna u marin toos uu caalamka uga soo iibsan karo marka waxa aan la wadaagay qaababka loola xiriiro supplierska iyo dhammaan dhaqdhaqaaqa dhaca laga soo bilaabo supplierka ama warshada ilaa iyo macmiilka waxaan si gaar ah awood u saarnay waxa weeye sida ugu wanaagsan ee loola xiriiri karo suuqyada caalamka ilaa iyo waxaan sharaxnay 5 nooc oo suuqyada caalamka ah oo uu kamid yahay suuqa stock market-ka iyo suuqa order-ka iyo dalabaadka adigu aad waxaad rabto aad soo samaysan karto iyo suuqa loo yaqaano agent market-ka iyo wakaaladda inaad company wakiil u noqon karto iyo suuqyada warshadaha dad u baahan tahay inaad soo iibsato qaabka ugu wanaagsan ee aad soo iibsan karto iyo sidoo kale suuqyada online-ka Amazon iyo Alibaba iyo Shein ka waxaan kaloo ka hadalnay shipping-ka iyo qofku sida uu u soo riri lahaa alaabtiisa haday noqoto si fudud haday noqoto maaragtay air freight labadaba
sidoo kalena waxa weeye uu custom clearance uu heli lahaa cashuurtiisii looga soo khalisi lahaa dekeda ama airportada si ilaa inta uu kasoo gaarayo maaragtay macmiilka kadib waxaan qaybtii dambe kula wadaagay how to create a successful business wadooyinka ugu wanaagsan ee aad u mari karto ganacsi guuleysta ilaa 20 qodob oo waaqac maanta ku dhisan oo aan copy to paste ahayn laakiin nolosha iyo waaqaca oo digital systemka iyo technology-da maaragtay la xiriira marka runtii aniga lafteeduna si shakhsiyan waxaan uga faa'iiday networking badan ma sha Allah dad badan oo hal door baan ku bartay dhalinyaro badan oo maaragtay ama teedu haya ganacsiga baan ku bartay ma sha Allah dhinaca kalena suuqiin baan ka faa'iiday oo inaan kambanigeyga aanu intaas oo qof aan farintii aan gaarsiiso aniga lafteeda faa'iido ay noo ahayd ma sha Allah marka runtii waxaan oran karaa waa madan loo baahnaa dhinac kasta laga eegaba waa ka faa'iiday runtii absolutely طبعا aad u hanqal taagaysa qaabka affiliate market ku sameeyaan iyo drop shipping ka ay u baahan yihiin e-commerce ka ay u baahan yihiin digital system ka ay u baahan yihiin social content creators ka ay u baahan yihiin يعني فرصة aad la wadaagi kartaa ama aad dhihi karto haddaad meeshaas tagtaan guushi baa helaysaan maxay tahay horta qofka waxaa muhiim ah dhalinyarada markuu ganacsi bilaabayo inuu naftiisa barto waxa laga yaabaa armaan qofkan ba ganacsi loogu talagelin baa marka horta inuu qofkiisu ogaado inuu isaga inuu barto waayo waxa weeye imika business baan ku jiraa laakiin waxaan kaga jiraa service baan kaga jiraa productiga talentina u melihi dabeecada iyo dulqaadna u melihi marka waa in horta qofku wuxuu ka shaqeynayo moralkiisu inuu islahaado waa wax muhiim ah ustaad Axmed Busuri oo dabcan isaga ah meesha dhalinyaro badan ay u hanqal taagayaan ama ay rabaan inay yimaadaan haddaan si kale kugu sheego waa cryptocurrency directed ama forex whatever digital marketing haddaad rabto meeshaad ku baahi bixi lahayd ama lagaaga haqabtiri lahaa waxaan si walba u ogsoonnahay qof walba oo dhalinyaro ah ama fahamsan qaabka digital marketing ka raba inuu soo galo inuu fahamsan yahay in qofka lacagtiisa laga qaado kadibna loo dhaho waa lagu shaqeynayaa si taas looga baxo ama baahida looga baxo waxaad si toos ah ustaadka uu maanta noogu haqabtirayaa qaabka aad u baran karto with short form iyo waliba xataa si aan lagu dhicin adigana aad lacag u samayso ustaad soo dhaw aad u dhawaad ma sha Allah tabaaraka Allah farxad bay ii tahay dabcan system aan anaga aqoon u leenahay ma aha absolutely haddaad YouTube ka gasho hindi baa ka soo horbaxaysa ama cadaan ka soo horbaxaya generation keena 10 sano back hadii dib loo noqdo lama hayo qof perfect ah hadii kale waa 2 iyo 1 that's true waxa farxad gaar ah markii ah inaad maantay adigoo Soomaaliya luqadda isticmaali Soomaaliya qofka baahidan qabana Soomaali uu yahay in loo xaqabtiro la fahamsiiyo sirta guusha digital marketingka amaba currency digitalka anagoo fursadda ka faa'iideysanayna hal iyo labo ma sha Allah tabaaraka Allah soo dhawaarta aadan ku aamad cilnaa boqolkiiba boqol fursadan qaaliga ah ee maanta aan isku kulanay madashan Global Somali Entrepreneurship Forum oo aan runta dhigi karo walaalo badan oo qiimo badan ayaan kula kulanay waana waxyaabaha ugu muhiimsan marka la dhax imaado isdhexgalka bulshada in wax uu kala faa'iidayo thank you aad waxaan ku faraxsanahay si naxariis leh inaan maanta kulanka qiimaha badan kula qaadanayno thank you ustaad ku soo bandhigaysid aragtida ah sidee walaalaha Soomaaliyeed uga faa'iideysan karaan fursadan digitalka ah maadaama aan ognahay Soomaaliya maanta inay yihiin dadka ugu badan da'yar oo leeyahay boqolkiiba 75 waa da'yar ka yar 30 taa ay muujinaysa marka in ardaydeennii walaalahayna Soomaaliyeed arkayna jaamiciyiin oo wata degree ama master oo haddana noloshii heerkii ay rabeen ka gaari karin ama shaqaba aan heli karin dalkeena ognahay inuu xaalad soo kabasho ku jiro aan loo awoodin inay helaan shaqooyin madashan Agetech Solutions maanta aan ka hadlayno waxaa ka horeysay madal online ah oo leeyahay Age Crypto oo 40 sano ee ugu dambeysay aan si online ah walaalaha Soomaaliyeed aan ku bareynay xirfadaha suuqa wasa shaqti marka YouTube tago waxa arkay cadaan madow guulo waaweyn ka sameeyay suuqada financialka hadana Soomaali aadan u yarnaa why because qofkii aqoon ku filan ma jirto qofkii waxa laga yaabaa meel wax ka soo bartay inay aqoon daba go'an aqoon aan dhameystirnayn min meelaha ka badowsaday taani ay keenaysa marka niyad jab badan inuu ku yimaado dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ku jabeen barnaamijka jiifka jaqda ii dhiibo aan ku shaqeeyo lagala gooyo booteba lacag ku shubo lagala gooyo CJ lagala gooyo meeqan laga dhacay billions lacag millions kii hadda ugu dambeeyay to something la dhahay it was fake waan ka hadalnay in badan ka dib ka fogaada kii ka sii horeeyay muxuu ahaa Tribot 35 milyan oo hanti Soomaaliyeed ayaa lagu dhacay so waxaad moodaa marka
in loo soo shaqo tagay in la arkay dadkeena inay baahi qabaan digitalka inay ka shaqaystaan online inay ka shaqaystaan at the same time meesha ka maqan expertise dadka aqoonta u lahaa xirfadda u lahaa in ay walaalaha Soomaaliyeed baraan so madashan age crypto YouTube-ka iyo Telegram-ka iyo meel walba weyn Soomaaliya ay maanta hogaamin ay ku jiraan 17,000 arday ka badan adduunka dacaliis jooga haddaad imaato waxaad ugu imaanaysaa gabdho macallimiina wiilal macallimiina hooyooyin suuqa ka shaqaysanaya waxyaabaha ugu badan ee suuqadan aan runtii aniga mar walba aan ku dhiirigeliyo gabdhaha dhinacoodan jira sababtoo ah baahi u weyn ka weyn ragga u qabaan sababta iyaga carruur ay korinayaan gurigii bay joogaan ma awoodaan inay bannaankii aadaan suuqan wuxuu siinayaa marka xirfad inay iyagoo gurigooda joogo carruurtooda korsanayo gurigooda hagaajisanayo inay ka shaqaystaan wax la heli karna maaha waana haddaa imaata waan arki doontaa gabdho badan nala joogo ustaad ayaana joogto ustaad bintiyaa joogto gabdho badan oo marka waxaad leedahay gabar Soomaalida ah marka waxaad leedahay gabdhihii wax bartay ee markii la guursaday intay waxbarashadooda ka hami jabi lahaayeen iyagoo gurigooda jooga xaasasa ka shaqaystaan absolutely waxyaabaha age crypto guulaha gaarto waxaa ka mid ah gabar waxaa jirta maamo oo nala joogtay oo maalin maalmaha subax alisay live soo gashay kamarada furatay iyadoo canjeero dubayso ilmihii haysato dhinacii kalena trade ee ku jirta suuqii lacag ay ka sii sameynayso oo runtii ay sameysay $120 way ilmeysay lama ilmeynayso lacagta waxay la ilmeysay double master way shaqo ku sarweys dareemi karta dareenka qof double master shaqo ku sari waay maantana si isagoo gurigiisa joogo inuu lacag sameynayo muhiimaddu lacagta ma muhiimaddu waa xirfad qofka annaga hal ku dhigay fursadda waqtiga ka baxay absolute hal ku dhigayaan customer la age crypto maxaa yahay awood aqoontu waa awood waa dareemi kartaa aqoontu waa awood marka la dhaho qofka markuu aqoon barto waa powerful age crypto marka age tech solutions waxay awood u siinaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed in ay barto xirfad sax halkan waxaa ku qoran fundamental technical trading sentiment on chain so qofka waxaan barinaa aqoon kaamil ah center inta xafiis ma ku leedahay lagu soo booqan Kimathi Street arkaysa xafiiskeena waa kana oo dadka si physical u baraysa absolutely si physical aan barayno physically aba dadku baraysa absolutely waa wajida boorka ku dhigay waxaan dhignay qalabkii ugu dambeeyay wax lagu baran lahaa qaabkan wax u barayna waa western style so how long qofka expert uu ku noqon karaa ama standardka uu ku gali karaa uu kala fahmi karaa waxa uu ka shaqeynayo waxa kale qofka adag ku xiran tahay waxbarashada taqaanan way fundamentalka how uu qabsan karaa fundamental anaga course-ka masterga ama master class-ka aan sameynay waxa ugu talagalnay muddo bil ah 30 days ardayga waxaan siinaynaa fursad ah xiisad theory ah xiisad practical ah dan la mentor gareynayo so qofkii wuxuu haystaa fursad uu la trade gareynayo ama uu la joogo qof live trade galayo ma demo account ma aha live real money lagu trade gareynayo at the same time qofku waxaan baranay investment plan oo saddex qaybood ka kooban saddex model oo kala conservative model modern model iyo aggressive model saddexda model oo maalgashi lagu sameeyo ayaan baraynaa waxaan baraynaa sida coin u baaran lahaa kow xalaal shay xaraam muslimiin annaga wax walba xalaal xaaraan ka fiirino kadib waxaan baraynaa qaabka u door qofkii wuxuu helayaa marka aqoon dhameystiran awood ugu yeesho inuu maalgashto macnaha trade-ka qaabka u sameynaya hadduu albaabkan furo albaabkii xaaraantuu furay hadduu albaabkan furo albaabkii xalaashuu furay kan waa uga digaynaa kana ka shaqaysan leen dan adiga waa dookhaaga marka qofka waxaan siinaynaa fursad qaali ah oo runtii uu heli karo waayo suuqan is all about mindset psychology dadku badanaa waxaa la dhahaa kaala course hebel qaado lacag sameey lacag hebel sameyn kartaa adaa lacag lagaa sii sameynaya absolutely wax ka jira male suuqan khataraa taala faa'iidana way taala soo labadooda inaa u sheegtaa marka suuqan khatarna waa leeyahay faa'iidana waa leeyahay bulshada halka igu wada xiran kulligood su'aashay hadda isweydiin doonaan waxay tahay hal su'aal waan idin ogahay su'aashaad rabtaan inaad weydiisaan baa idin weydiinaya su'aashana wax kale ma Soomaaliyaan joogaa macallin ma haysto account aan ku furto systemkan ma soo geli karo wadankeygu international ma aha GPS-ka la ima aqbalin at the same time inaan ka shaqaysta rabaa sidee uga shaqaysan karaa waa su'aashiina laakiin isagaan jawaabta ka sugeynaa absolutely su'aal qiimo badan waay su'aal muhiim ay weydiisay yes walaalaha Soomaalida caqabado badan ayay kala kulmeen suuqyada online-ka stock market ko kale yes lama geli karo waayo anaga dalka financial system-keena ma dhisna transparent ma aha waxyaabo badan oo qabateena saaran howlo badan jiro banking system-keena male currency ma lihin soo brokerada waaweyn ee ka shaqeeya stock market nama ogola laakiin fursad ka qiimo badan ayaa Soomaaliya u furan maxay tahay cryptocurrency Binance wuxuu ogol yahay ID-ga Soomaaliga ogol yahay in lagu furto passport Soomaaliga ogol in lagu furto waana exchange-ga caalamka ugu weyn uguna fiican uguna raqiisan fi ahaan coinanka adduunka dhan ay ku jiraan soo iyagoo marka fursad heli kara waxaan leenahay ka faa'iideysta insha Allah su'aashii ugu dambeysay maadaama expert tihiin adduunyada sida hadda Kenya kale
dadkooda expertka sidiin oo kale ah waxay isku dayaan inay dadka internationalka shirkadahan leh inay inta hor fadhiistaan ay yiraahdaan waxaan annaga rabnaa inaad dalkeena u soo deysaan systemkan idinka maxaa idinku kalifi waaye inaad inta expertka ugu waaweyn inta la fadhiisataan aad tiraahdaan we are from Somalia waxaan u baahanahay systemkan dhalinyaradeena inaad u fasaxdaan ama aad kala hadashaan ma isku daydeen absolutely waxaa jirto waxyaabo aan samayn karin waxaan samayn karin waxna dawladaha sameeyo arrinta ka hadashay stock market oo kale ama brokerada waaweyn oo kale annaga waxay naga dhageysanayaan mal why because adduunka dhan isku xirayeen dalkeena una qabateen baa saaran waxaan ka soo baxnay burbur currency ma lihin banking system oo shaqeynaya ma lihin central bank oo shaqeynaya ma lihin taas oo dhan waxay keenaysaa brokerada inay ka cabsadaan under government transparent ma jiro under government waxaas dhan waa under government hawsha dawladda askari okay annaga hawsha aan leenahay maxay tahay with professionalism ku baa gelino war haddii meeshan kugu adkaatay meeshan afrood inaan lagu dhicin stock market yes waa Soomaaliya waxaan ku talinahay ugu xiran ama dhageysan doono dhan shirin alle qof u dhiibi kaale shaqeyso kaale account-ka furo boqolkaaga door adigu ku shaqeyso waxaa halka ila jooga saaxiibka Cabdishakuur Xarbi oo dabcan asaga ka soo qayb galay madasha Cabdishakuur madashan dhalinyarada maanta isku wada imaanayso oo dabcan ah madal entrepreneurship ah dadka e-commerce ku shaqeeya ama dropshipping sameeya ama maxaa la yiraahdaa social media content creators ka ah ba isku wada yimid doorka ugu muhiimsan ee aad dhihi karto madashani dhalinyarada way ka caawinaysaa haddii aad hal iyo laba dhalinyarada la wadaagto walaalkay aad baa mahadsan tahay si naxariis leh thank you so much thank you inaad igu soo marti qaado bogaaga thank you aad baan u salaamay dhammaan asxaabtaada thank you runtii barnaamijka Global Somali runtii waa barnaamij weyn oo isku keenay aqoonyahan dhalinyaro dad waxa weeyaan siyaasiyiin iyo ganacsiga absolutely yanagoo ah teamkii online ka socday si wanaagsan marka inta badan anagu waxaan dagaal kula jirnaa dadkan qaabka offline ka u shaqeysta si wanaagsan oo hadii jeer dhalinyarada waxa ku dhiirigelinaa inay online ay yimaadaan absolutely dhinac walba hadii noqoto qofku inuu adeeg ku iibiyo ama e-commerce ku jiro ama hadii noqoto inuu dhanka crypto iyo digital currency ku jiro si wanaagsan qofku inuu noqdo qof content creator oo muuqaalada iyo barnaamijyada ku soo gudbiya baraha bulshada si wanaagsan niyo halkan fursada weyn ee dhalinyarada ay u tahay waxa weeyaan hadii jeer dhalinyarada waa kuwan shaqo la'aanta ka cawda si wanaagsan oo iyagoo skillkii bartay ama qofkii oo wax bartay oo jaamacad ka soo qalin jabiyay absolutely haddana wuxuu ka caawinayaa shaqo la'aan inay jirto si wanaagsan marka madalaha noocan oo kale waxay aad ugu fiican yihiin connectionka iyo networkingka qof waxa laga yaabaa ganacsada inaad isku barataan barnaamijyada noocan oo kale hadii jeer dhalinyarada waxay ka caawiyaan connection iyo communication yes in integration wada sameeyaan meeshan oo kale waxa iskugu yimaada dad waxa weeyaan aqoon kala duwan leh skills kala duwan leh xirfado kala duwan leh shaqooyin kala duwan soo qabtay ganacsiyo kala duwan leh siyaasiyiin ganacsato dadkii la raadinaya hadii jeer adduunyadu waxa weeyaan kala mashquulisay meelaha kale isku arkaan hadii jeer waxa la hadaad maqaaxi tagtay intii bilaa camalka heed baad ugu tagaysaa laakiin barnaamijyada noocan oo kale dad hadii jeer waqtigoodii ka soo jaray ayaa iskugu yimaada oo waxa weeyaan isku arkaysaan taas runtii waa fursad weyn oo aan banaan laga helin oo qofkii wuxuu heli karaa fursadihii uu dhex raadinayay haddii imika baanalada qaar aad degeystid laga yaabaa hal idea laba idea aad ka heshid in noloshaada dhan wax ka bedesho si wanaagsan marka waxaan oran karaa fursad weyn bay ahayd annagana runtii waxaan arkaynay dadkii inta badan shaashadaha xagga naga daawan jiray meelaha uga warami jirnay iyagoo caadi la isku wada arko isku wareysto marka right positionka waxaad leedahay content creatorska waaye content creatorska iyo dadka inta badan online ku shaqeeya hadday noqoto e-commerce-ka dhalinyarada qaar waxaan arkayay iyagu ka shaqeeya arrimaha loo yaqaano Fiverr-ka iyo sidoo kale barnaamijkan kale Upwork loo yaqaano yani dadka graphic designers-ka oo ama translators-ka oo luqadaha iyo kala bedela hab online-ka website-yada uga shaqeysta in meesha isku wada yimaadaan skills-leyda ama xirfadleyda oo dhan inay isku wada arkaan ma sha Allah marka fursad weyn weeyaan baan oran karaa si wanaagsan ka dhalinyaro ahaan maadaama aad ku dhex jirto haddii maanta qof uu ku yiraahdo ii faa'iiday halka meel aad u tilmaami lahayd oo aad dhileed maanta ka faa'iideyso waa meesha kaliya ee aad baagamuudada uga bixi lahayd halkee ku tilmaami lahayd
يعني inteed leedahay horta meesha qofka dhalinyarada hadduu galo wax ka oo dee dabcan busaaradii intuu uga tago waayo waxa hadda waalidiinta aad ay dhalinyarada ugu dhibaateeyaan waxa weeye hal qodob qofku waxa la leeyahay jaamacaddii ma dhamaysaha shaqayso khayrka oo shaqaysanaya qayrka uu shaqaysanaya intaas wax ku soo barayay shaqayso shaqaysaa dee waalidkii directionkii ma hayo balse kaliya waxa uu hayay cunuga inuu wax baro kaliya skillskii iyo meeshuu wax ka raadsanayay in indhaha loo furo dee ma jirto qofka marka hadduu arko walaalkii ka weyn ama walaashii ka weyn oo dee jaamacad inta ka soo baxday gurigii busaare la'aan la fadhisa hadduu arko dee jaamacaddii buu nacaya maxaa marka qofka kuwaanin lahayd oo aad dhiileed meesha haddaad imaado busaaradana waa ka baxaysaa adiga waalidkana isma qabanaysaan mustaqbalkaagana waad dhisi kartaa horta Allah u naxariistay nin riwaayadaha matali jiray abwaan sooraan la oran jiray absolutely Allah u naxariistay wuxuu jawaan mataankiisa si wanaagsan ayaa wuxuu ka khudbadeynayay jaamacad markaa dhalinyaro ka qalay joonisay si wacan wuxuu yiri warniyo haddaan anagu waxayno annaga meesha wax ka ognahay aadi lahayn buu yiri si wanaagsan marka idinku xal abuura ama jirto meel dee intuu qofku wax koobiya oranaya dee meesha gala oo dee isagaaba tegi lahaayo dee guro lahaa lacagto dad kale uu ka heli lahaa waa si wacan laakiin iyo maanta marka la eego adduunyada waxaa sooran karaa waqtiga ugu habbooneed ee bini aadan noolaan lahaaba si wacan hadday noqoto fursadaha si wacan yani waqtigan maanta la nool yahay qofka dhalinyarada ah awood wuxuu leeyahay isagoo madax bannaan dhaqaale kasta iyo wax kasta riyo kasta uu leeyahay inuu sameeyo waana waqtigii ugu habbooneed maalin weyto 2 isbuuc ka hor ninka iskale shirkadda Facebook Mark Zuckerberg mulkiilaha shirkadda Facebook ee guud ahaan Meta ayaa 2 isbuuc ka hor wuxuu soo bandhigay barnaamij loo yaqaano Orion si wanaagsan Orion waxa weeyaan waa smart glasses marka waxay qorsheynayaan in gebi ahaanba laga baxo moobilada nooc yihiin moobilada waxa weeyaan qof kasta uu sisto imika wax ku duubayno aan ku hadlayno communication ku sameeyno in laga gudbo oo shirkadda Meta ay sameeyay shirkadda Meta marka waxay ahayd fikir guud oo waxa weeye adduunyada dhan saas u gudbisa shirkadaha iPhone oo kale gibigeeda 10 sano kadib haddii shirkadda Meta barnaamijkan ansixiso already way ansixiyeen suuqa soo geliyaan oo dadku galaan iPhone waxa arki doontaa iyaguna smart glasses u gudbay smart glasses vision la aaday si wanaagsan marka smart glasses kaas waxa weeyaan waxay qabanayaan shaqo kasta oo mobilkaas qabanayo waliba waxay dheereen waxyaabo fara badan oo qofku u baahnaa haddii noqoto inaad qofkii virtual ah idagoo muraayadii xiran inaad virtual u aragtid inaad waxa weeyaan adeegyada qaar aad ku qabsatid hal waxa weeyaan waayo waxa la isticmaalaya faraha one touch qaabkaas oo isticmaalaysa dharag shaashadahan gabigaaga sidaan imika isku hor joogno kale ayuu isticmaalaya kadib meesha waxa ka dabar go'i doona mobilka isticmaalkiisa oo developmentiga digitalka si wanaagsan soo waxa dareemaysaa adduunyada inay u socoto adduunyada noocaasa oo digital u gudbaysa marka qofka haddii inaga ina dhaafeen sagaashimeeyadii waqtigii e-commerce-yada waaweyn la sameynayay si wanaagsan fursad weyn waxaan haysanaa glasseskaas loo socdo absolutely aynu qayb uga noqono si wacan in short inuu qofku uu update noqdo la socdo arrimahan dunidii technology-da inuu la socdo kuna fikiro qaabku u sameyn lahaa business digital waayo digitalkaas uu kula guuraya laakiin maanta dukaan yar aad ka furtay xaafadiina laga yaabaa in inta xaafadaha ka agdhownay ka iibsadaan laakiin ama inaad ka soo qaxdaba talada weyn ee dhalinyarada maanta ama generationkeena siin lahaa waxa weeyaan inay kaliya ku fikiraan business digital inay sameeyaan kadibna ay rangareeyaan kadibna adduunyada meesha u socoto ay la socdaan waayo adduunyada gebigeeda waxa laga bixi doonaa lacagahan hard currency-ga digital currency baa loo wareegaya bitcoin coinskaas waxa laga gudbayaa moobiladan saan kuu sheegay oo Facebook baaba barnaamij cusub la timi Meta waxa loo gudbayaa smart glasseskaas dadku waxay noqon doonaan dad lazy oo waxa weeyaan ka cagajeeda waxa weeyaan koobka halka yaala dhaqaaqo marka dadkaas 10 sano kadib sidaad uga faa'iideysan lahayd waa maanta aad ka sii shaqeyso aad ka sii shaqeysid oo aad garatid so maanta waa inaad online business nooc doonaha noqdo store online aad samaysan kartaa adduunyada daafiyada dhan ba lagaaga adeegin karaa waxaad samayn kartaa sidoo kale inaad barnaamij samaysid adduunyada daafiyada kala dhan ayaad products ka samaysid oo dhan laga iibsanaya waxaad isku dayi kartaa inaad every innovation aad la timaadid waa dhinacii kale laakiin qofka dhalinyarada isku dayo technology-ga inuu ku kabo yani waxa uu wado ama inay online noqdaan ama inay noqdaan yani inuusan technology-da ka dhex bixin aad iyo aad u mahadsan mustaqbalka hadda shay xaga isku jira dhaqaalahana qof iyo dadaalkiis
ayay ku xiran tahay oo dee markaad online kaa soo gashid dee sida adiga iyo tamartaada waqti u gelisid ayay ku xiran tahay iminka meelaha ugu fiican ee dee qofka hadduu investment sameeyo waxaa ka mid ah kriptada sanadkan waxaa la qorsheynayaa 100 kun inay gaadho bitcoin iyada laftii waa fursad weyn oo dee aan la heli karin marka dhinac walba waxaa sooran karaa generationkan maanta dee mustaqbal ifaya noo soo socda insha allah aad iyo aad waa mahadsantahay thank you so much aad baa mahadsantahay thank you mahadi ha ka gaarto tiimkii isku dayay inay abaabulaan shirkan qiimaha badan